waxaa jiray nin xaas lahaa naa kaluu soo guursaday xaaskiisa koobaadna wuu ka qariyay ninkaas maxaa u dambeyn doona alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wala jeegtan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimco walba iyo qiso cusub waxaa jiray nin businessman ahaa xaas uu guursaday maasha allah xaaska caruur badan u dhashay ilaahay uu barakeeyay caruurta alxamdulilah waa weynaatay businesska ilaahay waa barakeeyay meelo badan uu ka furtay ninkii marka wuxuu go'aansaday inuu naag guursado ninku wuu fikiray xaaskaaga ma u sheegtaa mise waa ka qarisaa wuxuu yidhi haddaa u sheegtid kolleyba kuuma ogolaanaysa iska qarso haddana wuxuu ka fikiray qoftuu guursanaayo iyo meeshuu ku guursanaayo wuxuu is yidhi magaalada haddaa ku guursatid xaaskaaga faraha kaama qaadayso sidaa darteed wuxuu is yidhi waxaa ila fiican magaalada kale aan businesska kale ku leeyahay inaan ka guursado magaalada kalena kama fogo 20 daqiiqo lee u jirta ninka sidii uu go'aansaday magaalada kale oo business ku leeyahay gabar ka raadsaday gabar fiican oo helay waalidkeedu doontay waa la siiyay uu guursaday ninka waa isugu toostay magaaladan xaaskii weynayd caruurta joogto magaaladana business yar uu ku leeyahay iyo gabadh yareeda joogto uu ku guursaday xaaskoobaad ma shakirinay sababtoo ah ninka magaaladaas wuxuu ku lahaa business uu ku lahaa habeen laba habeen uu soo joogi jiray laakiin shanta habeen kale wuxuu la joogay naagta weynadu jooga siisan u shaqeyn caruurtiisii oo naagta koobaad dhashay waa weynaadeen gabar ka mid gabdhiisa marka waxay noqotay macallimad noqotay tii yareed maasha allah caruurii dhaloysay tii weyneedna maasha allah caruurtii waa u weynaadeen gabar ka mid gabdhaheeda tii weynaad ayaa waxay noqotay macallin waxay shaqo ka heshay iskuul magaaladeeda u jira 20 daqiiqo iskuulkaasna waxaa dhigto walaasheed yar mana is yaqaana iskuulkii lagu soo dhaweeyay kalaasaa lagu qoray kalaaskii marka waxay bilowday ardayda dhigata magacyadooda inay weydiiso adiga magacaa ilaa gabar ay soo gaartay magacaa hebel la dhahaa gabadhi way yaabtay markaas waxay ku tiri aabba hebel ma la dhahaa ha muxuu ka qabtaa business uu meeshan ku leeyahay okay hooyada magaceed hooyadeena hebla la dhahaa macallimadii marka arrintii way rumaysan weysay xafiiskay tagtay waxay tiri waxaan u baahanahay gabadhaas yar folderkeeda malafkeeda u baahanahay waa loo sheegay halkaas uu ku jiray la yiri meeshii tagtay waxay bilowday marka warqadihii inay gudbiso gabadha magaceeda aabaheeda hooyadeeda meesha waxaa ka soo booday aabaheed sharcigiisiaba ka soo booday ay diigi aabaheeda meeshan ku jiro gabadhi hal maray naxday way booday waxay sameysay kadib warqadihii meesha ku yaalay oo ku jiro aabaheed sharcigeeda ku jiray kaabi ka sameysay way qaaday waxay u geysay hooyadeed waxay tiri hooyo maanta waxaan ku hayaa sheeko weyn aabo naakal uu qabay yaa ku sheegay waxay tiri gabadhiisa aanba macallin u ahay macquul maan hal si yimaado waa la soo wada yimid warqadihii yaa la fiiriyay waa run waa duqi ay dhiigiisa meesha ku jiro sharcigiisa meesha ku jiro gabadhana asigaa wax la sameeyay mala bariyahaasna telefoon la soo waca ma jirin waa la sugay marka ilaa uu ka yimaado maalmo kadib duqiis ka socda soo galay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh afka la wada taagaya maxaa jira si wuxuu jira waa idin salaanta ka jawaab hooyadii soo boodi salaanta noo dambeysay maxaa sameysay oo maxaan sameeyay oo dhahay waxaa sameysay ma taqaanid ma aqaanay iisha maamadii warqadii la soo baxday warqadan soo ma taqaanid gabadhaana dhashay waa naga qarisay waana khayaantay beenaa noo sheegtay almuhim duqi maxkamada lagu furay duqi marka waxa uu cadaatay in sheekadana banaanka ay soo baxday faamilkana ay wada tashteen wuu fikiray wuxuu yiri maqalhaa naagtaas aniga qabo gabadhaana aniga dhalay wixii hadda ka dambeeyani habeen inta waaye habeenna xagga waaye maamadii qaylo maxaa ka waday saas wuxuu yiri markor waaba ka qarinay ixtiraam ahaan kaga qanay laakiin maadaam aa ogaatay waxaan kugu talagelin aa soo faarfaartay waa inaa cadaalada sameey marka habeenka meeshan joogo habeenka kalena meeshaas kalaan joogay ku talaga maamadii waa iswaashay waxay tiri wallahi billahi ma yeeray marka wuxuu yiri laba option ah haysataa habeen qaado hadaadan rabin xurriyada ugu dambeyntii walaal qisada waa qisa aad u qiimo badan wayna dhacday iyadoo kalena maalin walba ay dhacdaa sida darteed waxaan rabnaa inaan ka qaadano faa'iidooyinka ku jiro faa'iidada koobaad ninkaaga hadduu wax ka qariyo macnaheeda ma ahan inuu ka cabsanayo ka baqaayo ama uu ku nacban yahay bal waxaa laga yaabaa inuu ku jecel yahay oo ixtiraam ku haayo uu diiday inaa walwashid ama aad walbahartid faa'iidada labaad haddaa ogaatid ninkaaga inuu meel kale ku jiro waxba hadaba gelin leena sababta waxay tahay haddaa daba geshid laba mid ay noqonaysaa
inaa walwal iyo walbahaar ku noolaatid ama gurigaaga inuu burburo oo furitaan ku dhammaada aad tiraahayd waa ay khayaantay naa kalaa guursatay kuma rabe ifur uu ku yidhaah waa ku furay faa'iidada saddexaad wax aan jawaabteeda faa'iido kuu keenaynin ha weydiinin su'aalan waxba kuu taraynin ha weydiin haddaan example ku siiyo yaa la hadashay intee jirtay halkeed ku maqneed intee ku soo dhaxday waxyaalaha lan haddaa ogaatid waxba kama faa'iidayso waxaa jirta su'aalooyin jawaabteeda inaa ogaatid aadan fiicnayn ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum faa'iidada afaraad ninkaaga social media baaswordigiisa faraha ka qaad facebookkaaga baaswordigiisa maxaa waaye whatsappkaaga itus telefoonkaaga itus iska ana whatsappkaaga keen waa arka haddaad tiraahid oo shakisid laba miday noqon inay meesha wax ku jirin oo ku ceebowdid taasna kuuma fiicno kalsoonida meesha ka baxaysa faa'iidada shanaad carruurtii ku socotaa haddaa aabbaha wax ka aragtid hooyada ha u sheegin waa ceeb haddaa hooyada wax ka aragtidna aabbaha u sheegin waa ceeb ogow adiga waxaa tahay cunug la dhalayaa tahay labadana waa kuu siman yihiin mid ka mid ishiisa inay kugu dhacdane waa laga yaabaa sidaa darteed iska ilaali waxaan ku soo gebagabaynaa ducadan ilaahay hana asturo ceebteena allah ha asturo xumaantana allah naga ilaaliyo walaalihiina kala u sii gudbiya جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه جمعة صوصعت إيه قصة عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله